niman baa isoo afduubtay oo ashkhaas ah 2018 bishii 12 ayaa la isoo afduubtay ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay aan telefoon la ogolayn oo xuquuqdeydii asaasiga ahayd la ogolayn wax kastoo bani aadan u lahaa aan la ogolayn marka taasaa kalistay intaan noolahay oon wax dhihi karo fursadaan helo in aan sheego waxa meesha ka jiro xaaladda aan ku suganahay iyo cidda sababtay xaaladdaas. waaye bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee ma sugan yihiin? amnigu maraaxil buu soo maray. markii hore la isoo afduubay waxa weeyaan waxaa la keenay Muqdisho 6 bilood xafiiska hay'adda nabad sugidda ayaa lagu hayay. Fahad Yaasiin baa taliya ka ahaa. 6 bilood marxalay ahayd. muddo kale iyadana guri kale la geeyay oo ciidan hore oo ila joogay waxay ahaayeen ciidanka waa la dhaho waa shaamid oo nin kale uu wato oo 3 magaalo laga soo kala qaaday Gaalkacyo iyo Cadaadis iyo Dhuusamareeb baa muddo hayay. niman iska maleeshiya fawdaawiyiin baa ku badnaa oo kuwa qorkayda isku xabadeeyay oo qorkayda nin lagu dilay kadib waa laga soo bedelay oo guri kale ay keeneen isla warantiiba la igu soo wareejiyay. amaanka iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo way sugan yihiin kuma dhihi karo oo ma ku dhihi karo. waxaan rabaa qodobka ah inaad shabaab aad ka soo baxday dagaalka aad ka soo horjeedo hadda haddii lagu sii daayana qof nabad wax ku raadiya aad tahay inaad arrintaa fursad aan ku siiyo bal u kala cadayso mowqifkaaga dadka Soomaaliyeed markaan aan fursad ku siiyo. horaan u cadeeyay kaas walaalaha inado aad u mahadsan hadda kaas xabsi ku cadeyn maaye horaan u cadeeyay kaas wararkayga dib u raaco huri mowqifkaygana weligiisa waa cadda. anigu nabad baan wax ku raadiyey waana ku raadin doonaa haddaan la iqasbin walaalow marka dhaxal aabaha aad kasoo gaarteed leedahay uu nin shaksi ku leeyahay haddii dadkoo dhan ku doortaan iyagu ku aqoonsan mayn annagaana wixii haysana haddii lagaa soo badiyo dawladda ma soo dhexmaraysid mar dambe waxaa kuu furan uun doolkii inaad ku laabato